si wanaagsan cashadii waa idii deqsiyey Soomaha waa tahay sheekada waa soo gabagabaynaynaa gabagabadii aan siqaynaa awaar mataqaana abaalmarinadu waa isdaba joog waxaan soo hormarinayaa hadda dhinacii gabayada afka Soomaaliga sanadkan sanadkii ka horeeyay waxa halkan aynu ku sameynay gabay iyo waliba sheeka dhaqameed ku saabsan Soomaalida iyo waayaheedii ninkii aad uga barateen hadda dad fara badan baa weydiinay waxa la dhahaa wareede hebel ma jooga miya haddaan idin keenaya waxaad ila soo dhaweysaan gabyaaga sheeka sameeyaha saaxiibkay Asad Maxamed أنا هو إناد قصلي دونتان أنا هو إناد كهر غن دونتان أنا هو هاكه إناد كورن دونتان أنا هو هد يجور إناد أورن دونتان إلا سودا ويا مركلة أسد السلام عليكم waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa khiyaartii soo abaabushay xafladan qiimaha badan coach Adam Ugaas iyo ardadaas quruxda badan oo uu tababaro iyo intii kala qayb qaadatay oo dhan intaas kadib waxaan si gaar ah aad iyo aad uga helay dadkii meeshaan iga horeeyay oo dhan waxaas aad ii taabatay gabadhii Saciid oo maxaan ku yiraahdaa gabayga dhaqanka ka hadlaya iyo suubanaanta iyo asturnaanta iyadoo inan yaro meeshaan maarta ku barbaartay ah sida wanaagsan uga hadashay aruna markaa waxaan jecelahay balan Saciido Kaabe iyo shimbir kalkaal inaan noqdo ayaan isku dayay caawa insha Allah sheekadii bay si yar wadeen waxa laga hadlayay dhibaatooyinka qaadka shimbiri baa iyaga qaadkii soo galay shimbiri waa amir qaameen dhibaato ku soo kordhay marka barnaamijku hawshaas ku saabsanaa mid bulxan la yiraahdo caawara digdigtay in cadeynta waxa idin la socodsiin doonaa labada shimbiri laga go'ay la kala yiraahdo bulxan iyo gurxan labadii baan dhageystay dhagtaan la raaco waxa isleeyahay bal bulxan iyo gurxan waxay sheegayaan su'aal buu weydiiyay marka waa xogaa madadaalo wuxuu ku yiri waa maxay mirqaan oo afkooda agaw lagu hadlayo idinku ma fahmaysan fahmaye waa maxay mirqaan wuxuu yiri marka bulxan baa u jawaabay gurxan oo wuxuu yiri mirqaanku nin reer Soomaali galbeeda oo waqooyiga galbeeda Soomaali waqooyi tagay ayaa markuu meeshii tagay ka jawaabay su'aasha marka tiibaan ku sheegaya wuxuu yiri mirqaanka aad maqlaysaan waxa weeye naf lagu xareeyay qol qisaduna saas ku saabsan tahay aan daaqad lahayn meel malaasan dhuxul la shitay naftaas oo markii ay sirirtay oo laba baakilo sigaara iyo intaas oo tanakadoodo bigeys lagu miisay naf meel ay ka baxdo weeyday oo indhii banaanka u soo boodeen way mirqaanka maqlaysaan buu yiri markaas oo hawsha ayaa ku sheegay wuxuu yiri hawsha ayaa ku sheegay markaas ninkaas gabay ka tiriyay oo wuxuu yiri mirqaanka maqasheen waa naf mawtideed la cadaabo mootoon is ogeyno maqsin foorna la moodo marfash baas lagu sheego daaqadii la malaaso albaabkii laga mooso dhumuc miico galoon iyo meega weyn dhuxushiisa marka la isu dul saaray gow meesha la isku buquuray miciinkii laga dhaarshay bay mirqaan ka daayaan maanta soo lama yaabtid mijayno min annaar shimbirkii kala la yaab mijayno min annaar magana caawdu billah ma waashan umadaas war mala ma jiraan war way jiraan annaga ka og buuri dabka naarta la moodo marka uu mirdilaaco dhididku meel walba daato ee mushaaxo jidhka oo dhan bijin qaad lagu sheego oday aan sanad maydhan oogadiisa madowga uska gamida leh heerka midabaysta korkiisu farihiisa milaalmay laga maydhin habeeda marduufku ku xidhaayo maydhaxdu ku jiqsiyo ku marooji yaqaano markuu boog xoqanayo malaxdii ka daayay caleentu marinay bay marka ragga qaadku iyagoon ka mishiiqsan misna aan wiswisaynin jilibka u mutaano aan marqaadna dhahaane war maxaa ka siibu aan marqaadna dhahaane maan dhow soo lama yaabtid majayno min annaar magana caawdu billah ma waashano mudas war malaa ma jiraan way jiraan buu yaas gaarayba sigaarkiiba maadaha ka hadlay markay baakad sigaar ah malowqii ka malowleysan babka meel daloosha kansar mawdlana keena oo midka dux lahayn ay sidii warshad miigan maraaqii la shidaayay markab shoolada taagtay qiiq mudhaa kaga saari aan mirqaana dhahaan ma dhow soo lama yaabtid mijayno min annaar kii kala la yaab mijayno min annaar magana caawdu billah ma waashan umadaas war malaa ma jiraan
وأروي تيرانا أنا جاوك بويري بجايس كشاه بجايس كأي كوسي درام باكسي درام بويتا ماذا وجيس بجايس كمركي شاه عبيان ماليه طبعا كوم أو منا على جمعين بلو شيء معان وقوم يستي مرات ملا روبا كي موقن انتو قورت مروچو مر بجيس اسمه تشيرو ماشي عصات تشيرايو ما يبقى بحي دونو بالملاي يرادو ما عنده سؤال ما يابت مجينو من النار ما جانا عوذ بالله ما واشر مدرس ورملا متشران مركو قاد كنا ماذا بدقوي ويتني مركو قاد كنا ماذا عندها وكرمة تشيرو كم مديحة على نقوم بتشين هايستاه بالله نقوم معه أنا ما أنا مسوقين عقار بانكم ملاسيوير أنا ما أنا مسوقين عقار بانكم ملاسي بدقوا بانا هاي ما أنتو مركلان بحنتونا أذيرو وحما هايسايد دي ما أنت يديمي ودول ميرو شحات إري لوجو ما تشيبو أما هذه هرمية أودي سيدا محارلة أرد ماشي كفوفتك فيا isagoo ilmiskiin ilka huuran badowle afka shuush ka muuqdo ardaaga u meexanaaba adba maada la yaabin buu yiri wuxuu yiri mijayna min annar magana cawd billah ma waashin umadas war mala ma jiraan wuxuu waxa ka daran badgo wax la yaabay leeyin haye dubaab wax la yaabay leeyin dubaabku wuxuu yiri dubaab waa mishkile markuu seexda habeenkii bisad doolaha miiqan baa ku baacin mirjiira naf malay malab weeye isagood murjin moodo u maqiiqan si waalan meeshii aad garanaysay ka muquuray caloosha daba jiir mulac weeye midigtiisu haleeshay mirqin dhuuban ahayde miskahay ka go'daayo madaxa qoortiya laabtiyo mudkiyo isku yaala oo mutaxan baa ku fogaada mana qashan karaayo mana qiil kala keenay markuu quuqda guraayo war miyaadan ka quusan وحي مجينو من النار ما جانا عوذ بالله ما واشن أمداسي ورملا ما تيران كدبنا شمبريه كلا قبله دقيسنا يا شمبرها با كدبا هسه وحيان قاد كتشوشا إن هذا رمحو قرياها هل يالو قاد كتشوشا إن هذا روحسكو قرياها قاد كتشوشا إن هذا الكوه قريباها قاد كتشوشا وما سنتين واتهاي رجع قارن وجهه مركل لها قاد كلا جوجي قار كان سعبينين ليس كمقيلين تاكو قري واتهاي مركل هلا يقول سعبي أحمد أسد dhinaca abaalmarinada ayaan dib ugu noqonayaa waanigii hore idinku sheegay hooyada wanaagsan abaalmarin baynu siinay sidaas si lamida waxaa jira iyaguna aabbayaal wanaagsan oo wax fara badan u qabta barbaarinta reerkooda iyo horumarinta ubadkooda aabbayaasha Soomaaliyeed mid ka mid ah ayaan caawa waxaan u xulanay inaan abaalmarintan siino waliba waxa uu ku soo aadayaa aabahani xilli qurba joogtu ay aabbayaasha duraan oo yiraahdaan aabbayaashii qurbaha laga quusayaal bay noqdeen laakiin taas waxaan rabnaa inaan beenino oo waliba aabahan aan soo xulayno ama baan soo xulnay waxaan marqaati ka ahay aabanimadiisu marka aan arko waan ka masayraa oo waxaan isiraahdaa tolow hadaad isagoo kala noqon lahayd malaha aaba fiican baad noqon lahayd waxa waqti fara badan galiyaa wiilashiisu sida ay kooxdan uu aadam ugaas macalinka u yahay maalin walba iyo mar kasta uga soo muuqan lahaayeen garoomada ay ku ciyaaraan safarada dhaadheer ee gobolada kale loo geeyana kama maqnaado isagoo waliba shaqadii reerku ay u sii dheer tahay aabahani wuxuu aabbayaasha kala dheer yahay waa wiil dhalinyaro ah oo asaagii marar fara badan ay sheekooyin kale ku mashquulsan yihiin haddaba waxaan jeclaan lahaa inaad ila soo dhaweysaan saaxiibkay aabbaha aabbayaasha sanadkan aabbaha anigu aan ka masayro aabbaha aan jecel lahaa inaan ku daydo waa saaxiibkay maxaa yiraahdaa cabdi wahaab markaan saa dhaho nin kale aad u malaynaysaan waa saaxiibkay carab waxaan jeclahay carab
abaalmarinta inuu guddoonsiiyo aabba kale oo wanaagsan oo aan jecelahay isna cabdiraxmaan mukhtaar. carab aniga asagu haddaan dib uga sheekeeyo garoomadii waaweynaa ee magaalada Nairobi xaafadda Islii aan saaxiibo ku ahayn xilli labadeenuba aynaan aabbayaal ahayn isma lahayn habeenada ka mid ah adoo Minnesota joogo oo aabbe 4 caruur leh ayaad aabba kale 4 caruur leh oo saaxiibka aad soo dhaweynaysaa laakiin waxaan ku faraxsanahay inuu aabbo wanaagsan yahay isla markaasina uu aabbayaal fara badan u noqon doono role model saaxiibkay abaalmarintan guddoon carab.